xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka wadani Cabdilaahi Cismaan Geeljire oo wareysi siinayay telefishinka dalka TV ayaa ka warbixiyay safar u dhawaan uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada bariga dhexe iyo qaaradda Yurub. Sheegtay waxaan ku maqlaa safarkaas wuxuu ujeedadiisu ahayd inaan soo maro taageerayaasha xisbiga wadani ka tirsanahay iyo guud ahaan jaaliyadda reer Somaliland waddamadii aan tagay kamid deganaa sida Doha oo Qatar, United Kingdom, Sweden. ujeedaduna waxay ahayd inaan ka soo warhelo xaaladda taageerayaasha siyaasadda xisbiga aan gaarsiiyo xiriirka taageerayaasha xisbigana sugidiisa guud ahaanna jaaliyadda inaan uga warramo dalka wada jirkooda aan ku dhiirigeliyo inay dad walaalaa yihiin oo siyaasadda xisbiyada aanay iyagu ku qaybsanin aan kala soo hadlo intii aan la kulmay si wanaagsan baan haddeebidkeeda la iigu soo dhamaan. sidoo kale Cismaan Cabdilaahi Geeljire waxa uu ka hadlay heshiiska dhexmaray asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland. heshiiska saddexda xisbi qaran ee madaxweynuhu saxeexay labada xisbi la saxeexay gudoomiye oo heshiisaan soo dhaweynayno وهشيسان سلين هاي مركي والله قبحية آدي أدونو سودوين لحسبهان لو ده حسبنا وكيك سوى صاري قوان أدونو سودوين وأنا نقول رجلنا مدحينها وهنوم وقطايا ما هندم عندنا محافظ لقوضه بوق كساب سنة أنا نقول جلين والمدوين مدحيني ومعارض كوي تدخل محافظ كها waxaan leenahay madaxweynaha taageera caalamka hortiisa ku fadaaxadeynina oo qof qalba ka noqonaya wixii uu saxeexa ama ku ballan qaado ha ka dhigina waaba dee la arkay inaan anagu idinka maslaxayno madaxweynimka leenahay taageera marka waxaan dhammaan ummadda Somaliland u sheegaya in uu madaxweynaha inaynu wixii aan ku heshiino in lagu taageero inay waajib tahay waxayna ku heshiinayno intaynu ka murbayno waa halkeeda laakiin markaynu ku heshiino inaynu soo garab taagno way qolada maxaafidka ee muuqa badan ka ciinaysa sida noo muuqata waxay la tahay inay ku taageeraan madaxweynaha iyagu. ugu dambeyntiina waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay ka soo yeedhay la taliyaha madaxweynaha Ali Maxamed Waran Cade oo dhaliilay asxaabta mucaaradka. eedaas waxa ka jiraan iska dhaqaba jirada qof walba inuu qabiil been ku sheegnaa isagu bada waa qabiil marka uu isla u hadlay waa cali wardo saxaaqa diirka baa ka qaado taasi waa dhaqanka Soomaalida madaxweynuhu qol uu noqonaya diirka laga qaado marka ma habboonay dadka waaweyn ka gudbaan fahamka iyo tusaalaha ay dadka u noqonayaan qof walba qol u noqonaya hadii wanaagga laga tago ama de waxa maanta la sii wada qaldan laga maro marka xisbiyada waa xisbiye qaran madaxweyne qaran cali waa oday qaran. Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa.